ماشي لو يقان إيش التهريب ويا بصص كان أوجدين دتك قاضيان بقول $100 أيا لو بيعوا يا وهجاج وأوجدين بورس بالله واسف كان أخوها هنا والله بالله ما مساعدة والله كان لبحالك أحد معها والله ما أنت عجيب ما قاش موجزة ها مركب حواي كل دتك أبديت ير عن ربنا ما دام هذا خد كيلو صوف صحي dad badan oo wareersanaa waxay isdhahayeen maxaa Turkiga ka dhacay update-ka ugu dambeeyay kulay intii badan sida la socotaan warbaahinada caalamka oo arrimahan ka hadlayay xalay ay ahayd markii diyaaradaha dagaalka wadanka Syria Bashar al-Assad ay duqeeyeen xarumo ama ciidan oo ciidamada Turkiga ay ku leeyihiin gudaha meesha lagu magacaabo halkaasi oo runtii aan dhihi karno askar 33 ayaa ku shahiiday oo Turki ah in ka badan way dhaawacay ayaa ka soo gaaray kuwaas oo runtii aan dhihi karno isla markiiba wadanka wuxuu galay xaalad emergency ah oo kulan degdeg ah waxa ku dhawaaqay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kulankaasi waxyaalihii ka soo baxay waxa kamid ahaa in la isugu yeero kulan degdeg ah oo madaxweynaha shir gudoominayay xaaladaha soo cusboonaaday dhanka amniga marka looga hadlayo wadankan jawaab degdeg ah Turkida bixiyeen waxyaalihii jawaabta bixiyeen waxa kamid ahaa in ay meelihii ay ku sugnaayeen ciidamada Assad ay oo Idlib ka tirsanaa ama Syria gudaheeda la duqeeyay ku dhawaad 200 oo askari oo Syrian ah halkaasi oo Bashar al-Assad ka amar qaatay in halkaasi lagu dhibaateeyay ama ku geeriyoodeen taangiyo iyo kuwa kalena aad u fara badan halkaasi lagu waxyeeleeyay kulan degdeg ah ayaa waxa loogu baaqay gaashaanbuurta NATO inay ku yeeshaan magaalada Ankara kulankii neetana inta badan waxa ay taageereen in Turkiga lagu taageero howlgalkan Jarmalka kamid ah wadamadii taageeray iyo wadamo kale aad u fara badan waxaana socda wali howlgal cirka iyo dhulka oo ay wadaan ciidamada wadanka Turkiga oo ay looga aargudayo askartii 33 weerarkaasi runtii inta kadib waxa kala soo baxay warar ah in xuduudaha dhanka dhulka badda iyo la fasaxayo oo isla saakay galinkii horeba war ka soo baxay ama sarkaal ka tirsan dawladda Turkiga oo warbaahinta u sheegay waxa laga dareemayaa maanta Istanbul waxa laga dareemayaa in dadkii socotada ahaa tahriibka ahaa oo idil ay maanta ay runtii ay albaabada ay furteen xadka Turkiga iyo Greega Turkiga iyo Bulgaria baabuurta waxa laga rayaa waxay ka baxayaan magaalada meel walba boosteejo walba baabuurta ayaa laga rayaa dadkii guriyihii ku jiray guriyaha laga soo baxaya dadkii socotada ah oo tahriibka ah tahriibka marka hore waxa lagu bixi jiray ilaa iyo 3000 iyo 2500 ayaa Greeg lagu tagi jiray hadda qiimahaasi hoos u dhac weyn ayaa ku yimid waxa lagu baxaya $100 lacag ka yar qaar waxa arkaysa 200 liiro oo Turkish lira ku baxayaan ilaa iyo kumanaan tahriibiyaal ah oo isugu jiraan Arab ku jirto Afghanistaniyiin Pakistan Bangladesh Soomaali ay ku jiraan ayaa laga rayaa meelo kala gedisan oo ku yaal runtii wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul waxaan dhihi karnaa sicir bar xoogan waxa ku dhacay dadkii tahriibka dadka guryaha ku haystay guryaha la soo faaruujiyay waxaan meelo qaar aan ku arkay dad moobeelo oo markay maqleen dadkii waa la tahriibaya moobeelo in loo dhiibto oo lagu kala moobeelka loogu tago oo tahriibkii markaasi la soo aaday waxyaalo cajiib ah runtii dad badan oo halkan ku sugnaa oo markii hore qaab dalxiis ah ku yimid xitaa lugta la furay wax haray male meelaha dad ay ka baxayaan marka aragto basasa la keenay oo basaskaasi meeshaas runtii laga reeyay marka Turkidu ama dawladda Turkiga waxay sheegtay muddo 3 maalin ah inay ay xuduudahaas ay furnaan doonaan haddii jawaab rasmi ah laga bixinin ama adduunyada gaar ahaan wadamada reer galbeedka aysan jawaab ka bixin dhibaatada ciidanka Turkiga loo geystay in ay ooda laga sii qaadi doono wasiirka arrimaha dibadda Turkiga waxa uu sheegay mar saxaafadda uu la hadlayay in qorshahoodii ahaa in ay soo dhaweeyaan dadka muhaajiriinta ah ama dadka qaxootiga ee wadankan ay ku soo dhaweynayaan inuusan wali waxba iska bedelin oo xaalka wali oo sidaas uu sidiis u yahay ay qaxootiga ay soo dhaweynayaan
taasoo micnaheedu uu yahay in dadka ka imaanaya Syria ka soo cararaya gaar ahaan oo dhibaatada kala kulmayaan rejiimka Asad oo duqeyn fara badan shacabka u geysanayo in dadkaas uu qaabilayo iyo dadka kale oo meelaha kale ka imaanaya la qaabilayo kadibna ay lugta ay soo furi karaan marka waxa muuqanaysa marka xaaladda sidii hore markii hore waxa howlgalkan ama marka laga hadlayo dagaalkan ka soconaya Syria in la soo afjaro waxa hortaagnaa wadanka Russia hortaagnaa haatan waxa uu muuqanaysa kulankii hadda goordhow soo dhamaaday ee magaalada Ankara ku soo gabagabay ee gaashaanbuurta NATO oo markii loogu baaqay in kulankan la qabto ay imaadeen dhammaan reer NATO dhan kulankaas la qabtay waxaana laga soo saaray in Turkiga howlgalkan lagu taageero oo dhibaatada loo geysanayo dadka rayidka ah ee Syria ku nool oo shacabka ah gaar ahaan magaalada Idlib iyo meel la mid ah in rejiimka laga dulqaado lagu soo dabaalo deegaanada soo idin taasi marka waxyaalihii ka soo baxay ay kamid ahayd xogayaha gaashaanbuurta NATO Petersburg ayaa waxa uu dhankiisa uu sheegay in uu aad uga xun yahay dhibaatada loo geystay ciidamada wadanka Turkiga oo ayagu difaacooda ku jira diyaaradaha dagaalka ee rejiim Asad ee markaasi ay duqeeyeen laakiin jawaab degdeg ay ka bixiyeen Turkiga Istanbul marka ka hadlayno oo magaalo weyn oo runtii saameyn ku leh wadanka Turkiga oo dadka ugu badan ee muhaajiriin ay ku nool yihiin oo ahna meesha laga baxo maanta marka tagto meelaha muhiimka ah oo tahriibka qaab dhuumashaha wadanka looga bixi jiray saacadihii ugu dambeeyay maanta ilaa iyo galabta duhurkii saakay baabuurta meel walba taagan yihiin ilmo caruurtii iyo Syriaankii caruurtii la jiiday kulli يعني waa la furay oo baabuurtii la raacaya qiimihii ay idin sheego oo $100 runtii ayaa lagu baxaya tahriibiyaal gaarayo kumanaan tahriibiyaal ah adeesan ba ilaa iyo malaayiin gaari karinba ayaa waxa ku sii socda waxa ay ku wajahan yihiin saacadaha soo socda xadka Turkiga oo la wadaago Greega iyo Bulgaria ayadoo aan ognahay culeys fara badan oo dad badan oo tahriibley ah inay Greega ay dhibaato badan ay ku haysato oo culeys badan oo Greega uu ka jiro kuwa markay sii tagaan culeys kale ka imaan doona dadkan fursadaha ay helayaan waxa kamid ah meesha ay ciidamada Turkiga ay ka soo qaban lahaayeen ay soo celin lahaayeen culeyskaasi meesha waa uu ka baxay cid celinaysa ma leh kuwii xabsiyada ku jira oo muhaajiriinta oo tahriibka lagu soo qabteen waa la fasaxay kuwii badda ka bixi karina way ka baxayaan kuwii dhulka mari lahaana basaskaas iyo tagaasidaas la qaataa andirna magaalada la dhaho oo xad ah ayaa baawarta intoodii badan ay aadayaan marka waa cajiib waxyaalo badan dhacay runtii fadhi ku dirarada iyo meelaha ay isugu yimaadaan ama warbaahinta wadankan waxay aad u hadal haysaa dhibaatadii loo geystay ciidamada wadanka Turkiga iyo waliba baaqan runtii oo ah baaq yani fariin loo dirayo oo reer galbeedka gaar ahaan wadamada maxaan iraahdaa ku saabsan wadamada Europeanka ah oo arintan inay ay baaq ay u tahay inay wax ay ka qabtaan ama arintan lagu taageero kullee waxa u muuqanaysa saddexdan bari dad fara badan oo cabsi ku jirtay inay lugta furi doonaan inkastoo qabowna uu jiro qabow fara badan uu jiro oo يعني أنا لسكو هلين كرين وح حلقة أما غريغ لقال كل مدون أسكرت غريغ وح لقال كل مدون أسكرت بلغاريان ك أرنتان وكله واحد على لبكون يو لحية تمنكي أي مرسلان وكله علي أو تركيا أي أودا يكغادن إلا يو جرمال كأستريا ما لا فرق بدن أي لوك تجاي مركا وحيانا فرق بدن أجرا مركا على سي فرق بدن دنكي سيرين ولا قصة فصحية dhankaana dadka dil laga fasaxo marka waxa waaye waxay noqonaysaa dad ooda laga qaaday oo runtii meesha rabaan ay markaasi ay lugti ay gelinayaan waxyaalaha cajiibka ah waxa kamid ah rag maqaayad fadhiyay oo cunteynayay markay maqleen in isha baydhabo meel la yiraahdo oo caan ah oo Soomaaliyeed oo la baxeen oo Istanbul ku taal in basaskii laga rarayo cuntadii laga soo kala kacay oo la yaacay ayagoo dhan dad guryahoodii waxaad naqaanaa Soomaalida wadankan qabow iska jiro waa iska hurdaan maalintii dad qaar guriyihii loogu tagay war la baxaya la soo yaaco in la soo baxay marka dhibaatada ugu badan waxa dhigi karnaa waxa haysatay dadka tahriibayo oo guryaha dadka ku haystay elboorka ka soo qaadayay oo guryaha ku haystay in culeyskii ama dadka ay ku hayeen uu meesha uu ka baxay haatan marka
saddexda maalin inay wax isbedelaan waa suuragal in Europeanka ay inkastoo wadamada badan ay hadda ay taageereen haddii ay wadamada reer galbeedka intoodii badan ama European Unionka ay Turkiga howlgalka ay ku taageeraan oo laga codsado in la joojiyo waxa suuragal ah in dadkan intoodii badan ayagoo xadka gaarin ba la soo celiya suuragal ah laakiin waa go'aanka dawladda waxa weeye waa 3 maalin in baashan ama socodkan ama tahriiblaydan loo fasaxay dhanka iyo Yurub marka waxyaalo cajiib ah marka jiro oo runtii aan dhihi karno waxyaalaha laga bartay marka Turkiga arrimo noocan oo kale markuu dhaco asagoo runtii maslaxadiisa ka fikirayo culays fara badan ayagoo ku haya dadka muhaajiriinta gaar ahaan kuwa Syria ka imaanay oo magangeli ay siiyeen dhibaato ay ka soo qaadeen halkan ay keeneen culays fara badan Turkidu dawladda Turkiga ayadu haystay marka maanta waxay fursad ay u tahay ayadu dad ciidankeeda la laayay laguna fiirsaday in howlgalkan ay kaliya in ay marka ay jawaab ay ka bixiso jawaabta marka waxay noqotay mid cir iyo dhul inay ka aarsatay dadkii weerarkan geystay oo Bashar Asad teamkiisa ama askartiisa Europeankana baaq inay u jeedisay gaashaanbuurta neetan loogu baaqay inkastoo gaashaanbuurta markii dambe ay ogolaansho ay soo jeedisay oo ay aqbashay in kulankaasi Ankara uu ka dhaco isla saacado gudahooda ayuu xogayaha guud ee gaashaanbuurta neetan ku aqbalay in kulankaasi uu dhaco marka xaalka waa sidaasi magaalada sideedii kale ganacsiga iyo nolol maalmeedka iyo isu socodkii hawada ama safarkii hawada ama dalalkii la aadayay diyaaraday wax walba waa sidoodii uma maleynayso waddanku inuu wax ka jiro laakiin ajaanibta marka gudaha gashida marka waxyaalo badan ayaad ka dareemaysaa oo in dadkii rabay inay socdaan dadka kale caadiga ah oo faamilada oo waddankan degan oo ku nool ka shaqaysta waa sidoodii u degan yihiin laakiin dadka qorshahoodii ahaa inay baxaan fursad weyn u tahay maanta meeshii lagu tahriibayay lacag dhan $3,000 oo Greek lagu tagayay oo lacagta meel la kala dhiganayay in taasi ay maanta xirantay $100 marka lagu socdaa oo ayaa lagu tahriibaya waxyaalaha cajiibka waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah meelaha xawaaladaha maanta lugta soo mariyay xawaaladihii lacagtahay oo dadkii u tiilay oo yani ay ka qaadan lahaayeen bari kamaan lan waxaan la soconaa dadka tahriibka lacagta intay markay meel lacagta meel dhigtaan lacagahaasi inay dib ay xawaaladii maanta wala buuxaa aad loo soo buuxiyay oo dadkii waxa waaye jam meelihii xawaaladaha oo waxaad arkaysaa hooyooyin iyo dhalinyaro iyo dumar oo meesha aad u buuxo oo dhahayo bal fursaddan aan ka faa'iideysanaynaa aysan markaana dhaafin Ankara naftirkeeda waxaa laga soo sheegayaa asxaab fara badan oo Ankara joogay in halkaasi ay dad fara badan ay ka baxaan ay runtii ay u gudbayaan oo ay rabaan inay sii socdaan naftirkoodii asxaab fara badan oo muqdisho ka yimid oo qaarkood wariyaal ahaa ayaa la sheegay in waxyaalaha cajiibka ah ay ka mid tahay runtii in lug la furo oo xilli qabow ah culeyskeeda ay leedahay adigoo cunto haysan waxba haysan oo wareer kale waxaan dhihi karnaa marka dadka oo Soomaalida ah iyo dadka kale oo Istanbul jooga oo qorshoodu tahriib uusan ahayn iyo ardayda wax baranaysa inay ka feejignaadaan tahriibka waa wax wanaagsan ma aha Yurub wax ma jiro in la iska ilaaliyo qofka qorshihiisa ahaa inuu wax barto waxbarashadaada xoogga saar yeesan dadkan aan qorshaha lahayn waddanka yimid qorshooda inay tahriibaan yeesan idin galaafan marka qof walbo yaa hamil laga soo ridin waxbarashadaada adkayso waxa hore ila fadhiyo oo haatan alboorkan u sii soconaa waxa hore fadhiyo Maxamed oo asaga dadkan Yurub ka yimid oo UK ayuu ka yimid bal waxyaalihi la yaabka badnaa rabaa inuu bal maanta wax nooga shaqeeyo Sulmano waan maqlaye waa sida aad u sheegtay magaalada Istanbul iyo guud ahaanba waddankan Turkiga maanta waxa farxad gaar ah ku dareemaya dadkii ajnabiga ahaa ee u yimid halkan inay ka sii dhoofaan laakiin waxyaabaha igu cajiibka badnaa ee aan arkay waxa kamid ah hooyo Soomaaliyeed oo sidatay canug aan ku qiyaasayo 2 bil ama bil wax ka yar inuu jiro iyo maamo kale oo aan ku qiyaasayo da'da 70 ilaa 80 inta u dhaxaysa iyo 2 ciyaal ah inay isla cararayeen oo ay ka gaarayeen gabaaridii taariibka qaadaysay marka waxyaabaha igu yaabka badneed ayay ahayd oo cajiibka ah marka ay u socdaan waxa lagu jiraa xilligii qaboobaha ahayd wax ka horeeya ma jiro in ayaga marka wallahi waa arrin la yaab leh laakiin waxaan aad ma taqaanaa aan hadalkaaga aan u sii adkaynaya
ardadii halkan u timid inay wax ka barato inaysan fursadooda iska lumin Yurub wax ma jiro halkan inay iska joogaan aysan raacin Syriyaankan ordaya ama madowgan kale ee Nigerianka ama Eritreanka yaacaya inaysan ku dhaxdarsamin Soomaalidan ardada halkan timid wax ka baranaysa oo aad u dhalinyaro ah oo qiyaastii 25 jir 26 jir ilaa 30 jir u dhaxeeya oo diyaarinaya shahaadooyinka PhD-ga ku jira masterska qaarkood ay bachelorska diyaarinayaan marka in uu hadda galo hami ah inay taariibaan oo meel ay inay wax helayaan in kale aysan ogeyn inaysan waqtigoodii ku lumin nafsadoodii aysan qatar gelin